Cafiska ogow, nacaybka iyo calool xumada iyo inaad ku cararta aargoosiga kama mid aha dabeecadaha lagu yaqaano shaqsiga bisil. Qofka nolosha u bisilay waa qof si tolmoon oo wanaagsan u fikiraya, awoodna u leh inuu cafiyo khaladaadka kaga imanaya dadka ku xeeran, aqbalayana raaligelinta iyo cidda u geysatay gafka. Qofka nolosha u bisilay waa kan aan u fikirayn aargoosi, xumaantana aan ku bedelayn xumaan kale. Ha noqon danayste, ku dadaal inaad dhammaan dadka gacan qabato, khayr iyo samaanna u rajayso intii aad awoodo. Qofka oo naftiisa uun markasta wanaag la doonaa waxay astaan u tahay inuu qofkaasi yahay qof aan xasiloonayn, ammaan darro nafsiyana dareemaya. Waxa ay ka mid tahay dabeecadaha lagu yaqaano dadka aan fikir ahaan bislayn oo aan lahayn dabeecadda wanaagsan. Ku dadaal inaad farxad geliso dadka. Deeqsinimada iyo waxbixintu kuma koobna dhinaca dhaqaalaha, balse waxaa jira waxbixin aan la taaban karin, taasoo ka badan tan la taaban karo. Adiga oo ku dadaalaya inaad farxad geliso dadka kugu xeeran ayaa ka mid ah deeqsinimada ugu habboon. Waa inaad kala garato biseylka iyo weji xirnaanta. Qofka bisilay ma ahan qofka wejiga xiran markastana si aan kaftan ahayn wax u eega, balse waa qof kala garanaya marka ay tahay inuu qoslo iyo cidda ay tahay inuu la qoslo, marka ay tahay inuu waqtigiisa ku raaxaysto iyo marka ay tahay inuu kaftanka dhinac iska dhigo. Qofka aan dhiban in habeen kasta cimri u kordhaa waa lama huraan, cidina wax kama bedeli karto, laakiin waa inaad nolosha ku raaxaysato. Dhabta iyo dheeldheelkana isu miisaantaa. Waa inaad doorataa adigu qorshaha aad leedahay, maskax ahaan iyo awood ahaanna waa inaad u qorshaysaa adigu. Waa inuu go'aankuna kaa soo filo maskaxdaada iyo naftaada. Dad aad u yar baana sida ay tahay uga soo baxaa. Naftaada ku kalsoonow. Ugu dambeyntii, waxaad ku dadaashaa inaad naftaada ku beerto kalsooni. Shakhsiyadaada intii suurtagal ah waa inaad ku qanacdaa. Cidina ma jeclaa mana danaynayso ruux walaac badan oo aan hal adeeg lahayn. Waa inaad noqotaa ruuxa naftiisa ku kalsoon. Waxaad ku kasbanaysaa ixtiraam kaaga imanaya dhammaan dadka intiisa kale, iyaguna ay kugu kalsoonaanayaan. Laakiin ogow, walaalkayo ama walaashayay inay kala duwan yihiin. Naftaada oo aad ku kalsoonaato iyo indha adayga akhlaaqdaada dhaawacaya. Fadlan, haddii ku soo gaaray barnaamijkan, sheergaree oo la wadaag asxaabtaada. Haddii aadan ka mid ahayn bahweynta ku xiran channelkan Dalxa Media, ku soo biiro taaba calaamadda subscribe-ta si ay kuu soo gaaraan barnaamij kasta oo halkan ku soo gudbino talooyin iyo taariikh isugu jira. Wabillahi tawfiiq.